السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhammaan asxaabta ku xiran channelkeena sahan cusub. Sidee ku habaystaa oo ku hagaajistaa waqtigeyga? Sideena uga yeelaa waqtigeyga mid aan kaga faa'iideysto wixii aniga anfacaya? Waa mowduuca aan rabno inaan maanta kaga hadalno muuqaalkeena. Fadlan waa cashar ku anfici doona, isku day inaad dhamaysato. Walaalayaal, saan ogsoonahay waqtigu waa waxyaalaha ugu qaalisan ee Ilaahay ina siiyay. Marka waxa loo baahan yahay qof walba inuu waqtiga ka faa'iideysto, waayo ibn aadamkuba waa daq wixiisa inta uu nool yahayba waa saacado. Marka waxa loo baahan yahay qofka muslimka inuu ka faa'iideysto waqtigan Ilaahay siiyay, dhinac kasta, dhinac cibaado iyo dhinac waxbarasho wixii isaga anfacaya. Marka walaalayaal, waxaynu arkaynaa maanta in waqtigii inagu dayacan yahay oo dadkii ay garan lahaayeen si ay waqtiga u maareeyaan. Marka halkan waxaan ku soo gudbin doonaa insha Allah dhowr tilaabo ama dhowr xeeladood oo aad kaga dhigayso waqtigaaga mid nidaamsan. Dhowrka xeeladood waa xeelado ka kooban 7 ama 6 oo aan kugu sheegi doono insha Allah sida aad u nidaamsan doonto waqtigaaga, ugana dhigi doonto mid aad ka faa'iideysato waxa ku muhiimsan adiga. qodobka koowaad waa inaad samaysato ahdaaf ku go'an. Samayso hadaf ku go'an, waayo haddii aad leedahay hadaf ku go'an waxaad ka ilaalinaysaa waqtigaagan inuu ka beer daroobo oo aad meel khiyaali ku bixiso. Hal midna ogow, dadkan adduunka meelaha sare gaaray ee haysta diktoorada iyo wixii ka sii sareeya waa dad uu waqtigooda ka faa'iideystay, dad kale maaha. Marka waxa loo baahan yahay qofku inuu yeesho hadaf go'an. qodobka ku xiga waxa loo baahan yahay qofku inuu iska tago waxa loo yaqaan dib dhiga. oo bari baan qabanayaa, saada baan qabanayaa, galika dab baan qabanayaa, waxan baan qabanayaa. inaad iska dayso oo aad shayga marka niyada kugu soo dhaca aad markiiba hore ka bilowdo oo aadan isbarin inaad dib dhigto wax. waayo haddii aad wax dib dhigto maalinba maalin ay ku dhiibaysaa, saacadba saacad ay ku dhiibaysaa, sidaas ayaad ku arkaysaa isagoo waqti badan ku dhaafay, hadhow ayaad ka qoomayn doontaa. qodobka ku xiga ee loo baahan yahay qofku in uu sameeyo si uu uga faa'iideysto waqtigiisa oo ku sahlaya in aad waqtiga ka faa'iideysto waxa weeyaan in aad samaysato waqti muayyan oo aad u samayso waqtiga muayyanka amaladaada. shaqaad qabanaysaa maanta ama buug baad akhriyaysaa, waa inaad u samaysaa xilli go'an, bar saac, 15 daqiiqo, wax loo yaqaan 1 saac. waayo haddii aad saa samayso waqtiga nidaaminta waa waxa ugu muhiimsan ee laga faa'iideysto. haddii aad sidaas samaysana waqtigaaga waad ka faa'iideysan doontaa, wuxuuna ku noqon doonaa mid midho dhal ku ah. qodobka ku xiga waa inaad samaysataa oo aad qorataa habeenkii inta aadan seexan shaqada aad biri qaban doonto. in aad habeenkii sii qorato shaqada biri ku sugaysa ee aad qoranayso. haddii aad qorato waxay ka saacidaysaa in aad aroortiiba hore ka bilowdo shaqadaada. marka waxa loo baahan yahay qofku inuu aroortii habeenkii tuna seexan u sii diyaarsado qodobadiisa si uusan hadhowto markuu maalinnimadii gaadho u caajisinba oo markiiba hore ka bilowdo. qodobka ku xiga shaqooyinkaaga kuwa fudfudud ka bilow. matalan hadda waxaad rabtaa inaad laba buug akhrido, buuggaasi 20 warqadood ka kooban yahay midi. waxa laga yaabaa waxaad rabtaa inaad laba buug akhrido midi 20 warqadood ka kooban yahay, midna 50 warqadood. marka waxaad samaysaa ka 20 warqadood horreysii, waayo markaad wadada yar ka gudubto ay wadada weyn gaadhaysaa. wadaba wada ay ku dhiibaysaa, kadib markaas aad horumar gaadhaysaa. markaasi aadan u caajisin oo aadan maskaxda caajis uga dareemin, u kala horumari shaqadu say u kala fududahay. qodobkaasina waa qodob aad iyo aad u muhiim ah. qodobka ku xiga waa inaad barataa kelimada maya. maxaan ka wadnaa? haddii dadka maanta su'aasha waa iskaga baatay ama dadku waa iska faduul, waxba iska kaa weydiinaya qofkii, waa inaad ugu jawaabtaa maya. badanaaba jawaabahaaga badankooda waxaad bartaa maya ama ma garanayaan.
waayo haddaad saa samayso waqtiga uu kuu ilaashamaanaya. haddii aad wax walba tiraahdo haa, waqti badan ayaa kaa beerdaroobaya. markaa si aad waqtigaaga u ilaashato, baro kelmadda maya. qodobka ku xiga ee u dambeeya ee loo baahan yahay qofku inuu samaysto si uu waqtigiisa u nidaamiyo waa inuu qofku naftiisa abaalmariyo. maxaan ka wadnaa? qofkii shaqooyin buu sameeyey oo waxbuu akhriyey, casharuu diyaariyey, waa inaad naftaada u mahadcelisaa. samayso dhowr daqiiqo oo aad raaxaysato, walow 2 daqiiqo ha ahaatee. in yar naftaada caajiska ka yara bii. haddaad doonto koob qaxwo ku dhufo, haddaad doonto waxaad samaystaa koob sharaab soo cab, haddaad doonto waxaad xiisaynayso yara gal, ama YouTube yara dhagayso, ama Facebook yara gal. markaa naftii waxay jeclaanaysaa oo ay jeclaanaysaa in ay waxay qabanaysa dib ugu noqoto. markaana wax badan ayay kaa saacidaysaa, waayo caajiska ayaa kaa tegaya. markaa waa dhowr xeeladood oo aad iyo aad u muhiim ah oo loo baahan yahay qof walba inuu la yimaado si uu waqtigiisa u nidaamiyo, mustaqbalkiisana uga dhigo mid midho dhala. waayo qofka aan waqtigiisa ka faa'iidaysan ma noqdo mustaqbalka qof wanaagsan ama qof ifaya. marka waqtiga ka faa'iidayso si aad u noqoto qof mustaqbalkiisu ifayo. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. fadlan haddii aad ka heshay like noo saar. haddii aad ku cusub tahay bogga ama channelka Sahan Cusub, subscribe noo dheh. mahadsanid.